somaan oo ma quraanjadaad ka liidataa nin culimadii ka mid ah waxaa leeyahay hadda ka hor cilmi ka mid ah culumta diinta ayaa ku adkaaday wuu kari waayey waa ku rafaa isaga oo isleh ilaahay kan ma kari kartida isaga tag ayuu maalmaha ka mid ah isagoo socdo oo darsigii intuu ka soo baxay rafaadsan oo qalbi jabay tii wuxuu soo maray meel isagoo socdo wuxuu arkay quraanjo quraanjadu waxay xambaarsan tahay shay iyada ka culusba saa haddana waxay rabtaa inay derbi fuusho derbiga markay fuusho isku daydo way soo dhacdaa haddana way fuushaa way ku noqotaa way soo dhacdaa isagii wuu taagan yahay wuu fiirsanaya haddana way fuushaa way soo dhacdaa markay malaha 10 goor isku dayday oo mar walba soo dhacayso bay markii 11aad bay korka uga baxday way fuushay markaasuu wuxuu yidhi ma quraanjo oo khalqiga intan la eg baasay ugu noqnoqonaysay bay guusheedii meesha u socodda gaadhay sooma anigoo aadamoo intan la egoo ilaahay caqli isiiyo i karaameeyeyna waan carari miya alilaahi maya niyadii baa u dhisantay kadibna wuu ku laabtay cilmigii ilaahay baa u furay ilaa markii dambe uu noqdayba cilmiga dadka loogu culimada waaweyn ee fanniga loogu noqday markii dambe shaqo doon ma tahay shaqo oo barakaysan ma raadinaysaa shaqo xalaala ma raadinaysaa dhegayso qisadan ducadaana akhriso wiil waxaa jiro jaamacad ka soo baxay cilmiga businesskana soo bartay 30 shirkadood uu albaabka u garaacay macnaheedu waxa maalintiiba hal shirkad uu tagay warqaday ka qaadayaan faylkay ka qaadayaan resume-gay ka qaadayaan meesha ku tuurayaan wax soo wacaya malaha maalintii 30aad markii meel kasta ay ka soo xirantay oo guriga ku soo laabtay hooyadiisu u sheegay waxay hooyo macaani waxbaan rabaa inaan kuu sheego waa dhibana maxaa waay hooyo maxaa ku haysa anoo saas wax u bartay anoo heerkaas cilmigii iyo practice xitaa sameeyey oo wixii aan ku shaqayn karo shirkad ay ogolaanaysa malahan markaasa waxay dhahay hooyo albaabada bini aadamka waa fiirisay kii ilaahay ma fiiris waxay hooyo maxaa ula jeedaa markaasa waxay dhahday waxaan kaa rabaa ilaahay xaggiisa inaad aado oo salaada kadib waa dadaashay sooma shaqadii waa raadisay sooma wax kula soo xiriiraya malaha sooma ilaahay xaggiisa aad shaqo dambe ha raadin fadhi bilow digriga samee marka micnaheeda ma ahan fadhiga qofku waxaa la rabaa marka asbaabta inuu la yimaado marka asbaabta la yimaado ilaahay inuu isku xiro culimmadu waxay dhaheen markii oo tawakalka samaynaysa waxaad ilaahay u tala saaranaysaa iyadoon sabab jirin oo kale isku dhiib 100% ilaahay tala saaro markaad asbaabta samaynaysid waxaad u samaynaysaa iyadoon tawakal jirin oo kale macnaheedu waxaa loola jeedaa meesha ugu dambaysa wax gaarsiin karta gaarsiiyey dadaalka uu gaarsiiyey 30 maalmood calaa kulli xaal wuxuu bilaabay wardi maxaa wardigaas uu akhrinayo xasbuna allah wa nicma alwakiil wardigaas uu akhrinayo hooyo ugu naseexaysa hooyo macaan wuu waday maalinta saddexaad xasbuna allah wa nicma alwakiil 3 shirkadoodaa soo wacday shirkadda kasto markay soo wacayso waxay leeyihiin waa kuu baahannahay haddaan kuu baahannahay waagi hore uu baryootama wuxuu dhahayay shaqada noocii doonta ahaato iyo wuxuu dhahayay mushaarka noocii doonta ha ahaato waa ka shaqeynaa meelaha uu tagaya saasuu dhahay hadda isagaa weydiinaya wuxuu leeyahay intaas ma rabta intaas ma idinkugu shaqeynaa iyagaa la gorgorta waxaa leeyahay maya intaas xoogaa xuma naga dhimaysaa haddana telefoon kalaa soo dhacaya suga qoladuu leeyahay waa idinku soo celinaya qolo kale waxay leeyihiin anagaa ku qaadanayno meeqo adi wax sheego meeqaa rabtaa waxaa lagu gorgortamayaa khibraddiisii iyo shahaadadiisii xasbuna allah wa nicma